gudoomiye waxaa la yiraahdaa gol ayaa lagu sahmiyaa kuwa ag jooga cid kasta loo baahdo in larido ayaa lagu sahmiyaa waxaan ku leenahay dadka waxa weeyaan ka soo tag maanta sax ma ahan inaad ka tagto xaruntii qaranka inaad ka tagto oo aad tagto xaafad wax sax maaha taasi credibility-gaada iyo mistaaqiyadaada ayay wax u dhimaysaa waxaan rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed inaan fariin cad u jeediyo dhalinyaro aniga waxaan ahay nin dhalinyaro ah dalkan wax ku bartay dalkan u soo shaqeeyay dalkan aanan ka bixin marka laga reebo inaan u baxay howlo dawladda ah oo shaqo dawladeed iyo waxbarasho maaheed maanta markasta oo aan idin la kulanno waxaad ka sheekaysaan ama aad ka cabataan nabadgelyo daro waxaad ka cabataan shaqo la'aan waxaad ka cabataan tahriib waxaa laydinku shabadeeyaa inaad tihiin argagaxiso waxaad ku cadiban tihiin oo aad dhibaato waxa weeyaan ugu jirtaan xabsiyo ajnabi ay leeyihiin ayaad waxa weeyaan ku jirtaan haddii maanta xukuumaddii waxyaabaha la yaabka leh oo aan aniga mararka qaarkiis aan la yaabo dadka miyaanay damiir lahayn haddii caalamkii uu leeyahay dawladda horumar ayay samaysay dhanka amniga dawladda horumar ayay samaysay dhanka siyaasadda dawladda horumar ayay samaysay dhanka dhaqaalaha oo IMF ay ugu dambaysay markii aan cagta saarnay 2019 annagoo ku rajaweyn in deymankii la cafiyo kadibna naloo ogolaado inaan deen soo qaadano kadibna aan rabno inaan shaqo abuur idin sameeyno miyaa waxaa la leeyahay dalkan waxa weeyaan burbur iyo waxaan loo joogin ayaa waxa weeyaan loo horseedaya wax saxa maahan waxay la tahay haddii aad shaqo abuur rabtaan $340 milyan oo miisaaniyad ah shaqo abuur laguma sameeyo $340 milyan wadamada qaarkooda xataa hal agaasin miisaaniyadeeda ma dhama wadan ka mid ah wadamada gaar ahaan Faransiiska ayaa waxaa la yiraahdaa miisaaniyada caafimaadka loogu talagalay ee daryeelka eega oo kaliya ayaa waxa weeyaan ka badan $200 milyan ah dawladda Soomaaliya dhan iyo maamul goboleedyada dhan ayaa waxa la leeyahay 340 ayaa la leeyahay waa miisaaniyad wax suuragal ah maahan waxaan rabnaa inaan xoojino dawladnimada waxaan rabnaa inaad fursad u heshaan shaqo abuur inaad fursad u heshaan si kale laguma heli karo in ay dawlad u yeelato awood ah inay waxa weeyaan dhaqaale soo deynsan karto kadibna idinka ay shaqo abuur idinku samayso marka ha dhageysanina waxyaabaha lidin akhrinayo gudoomiyaha iyo caalamkana waxaan u sheegayaa intaani waxa weeyaan haddaadan arkaynin waxaad arkaysaan anigu ma garanayo kulay waa maasantiin salaam